السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن سلام دمان الصحابة ميل البود جوكتين هدي أدكو عصبتا جنال كسبسكريب سارسينا شير قري هدي أدهورن نولا جوكتين نولا قري كومنتيغا قروح دا بدن نخوص نوكو سوقر إنا لله وإنا إليه راجعون وحاد عضي عضاء حنون بدن وقفل بو وبني آني وكدن قضا maantay iyo shalay waxaa jirtay arrin lagu mashquulsanay oo gabar Soomaaliyeed oo inta la kufsaday haddana la dilay. Gabadhaasi waa gabar yar oo wali aad u da'yar dhigatana iskuulka sare maxal li jiray aadna geeridaas weyno xanuunjisay. balse aniga aan hadal badan ka dheeyno ku sii dheeraanayno waxaan u sheegayaa wiilasha Soomaaliyeed oo jecel inay gabdhaha kufsadaan haddana ay dilaan. qofkii gabar kufsaday ee dilay horta qofkaas wuxuu ku fikiray inaan dhibaato dambe aysan u imaanin oo asugu adduunka ku noolaado balse waxaan ku sheegayaa mid ka qarsan adduunkani waa wax yar waana laga tagayaa haddii xataa aysan usasaan ku soo galin laakiin waxaan ku sheegaa in saantu ay ku soo galayso xaq Ilaahay ma qarinayo oo soo bixinaya haddii aad ku fikirtay gabadhan kufso oo dil حق إلهي ما قرنا ونصو بحنايا إلهينا حق ما قريو إلهي حق ما قريو ونصو بحنايا بلسو حنكو شيغا يا مان هدي أدو استعماش أود هدي أدو استعماش قبردان إنك كحوق بدنتا هدي أدو استعماش قبردان إني بيش يدوكالي دتون وحبال لغا قادي كرين وقو وحالتك يا مالين أن لك الحوق بدنين سيداد وقو kasabtay inay gabadhaanu ay dhimato oo adiga sababa lagaaga dhigo wuxuu ma dili kartid laakiin sidaad adiga u kasabto oo niyadaada uga jeclaatay intaad disho intaad kufsataa hadana disho dhulkan ka hoos mariso ugu maalin waxaa jiraysa adigana dhulka laga hoos barinayo si walba aad u dhimatid qof gacanta kugu disho hal lagu qasaaso oo gabadhaas hal lagu qasaaso madaxeeda aad fakatid oo si kale aad u dhimatid laakiin waxaad tagaysaa maalin maalmaha kamida oo adigana gabadhaas meesha lagu soo duugo inta lagu soo duugo adigana xisaab lagu la soo fariisanayo adduunyadana waxaan ku sheegayaa waa wax yar oo aad u kooban wax yar way dhamaanaysaa sidaana looma sii wada joogayo qof walbo naflana waxaa la gali doonaa ciidda ka hoos waxaana u imaan doonta maalin xisaab adiga aadan waxba ka ogeyn markaa sameynaysa sidaad uga badbaadi xisaabtaas iskaga badbaadi dadka bini'aadamka xaqooda ama dhibaatadooda because waxaad u baahan tahay nolosha nololaan ahayn waadna ogtahay meel aan laga dhimanayn oo laga duqoobayn oo laga gaboobayn in la tagayo oo sidaadii shabaabnimadaada 15 sano lagu soo celinayo maalintaas si aan dhibaato iyo garaafo ku soo gaaray waa inaad ka fogaato waxyaabaha faxshilada oo adduunka adiga aad ku sameynayso waa ceeb aakhirana waxay kugu tahay ceeb oo maalinta yoomul qiyaam Ilaahay ceeb kula soo istaajinayo adduunka inta joogtana waxay kula tahay ceeb nin xaq qalana ceeb ma moogaanayo meel walba ha ahaato ha sameeynin inaad gabar walaasha ah kufsato oo ku xadgudubto hadana aad disho because gabadhaas waxa dhalay aabo u danqanayo sida adiga aabaha kuugu danqanayo gabadhaas waxa dhalay hooyo u danqanaysa sida adiga hooyada kuugu danqanayso waa nasiib xumo in hooyadii ku dhashay oo adiga ku soo koriso qof lamid ah sidaas oo iyadana hooyo inaad adduunka dhaafsiiso waa nasiib xumo inaad kufsato gabar yar oo Soomaaliyeed oo walaasha ah inaad kufsato waa nasiib xumo waxaad ka fogaataa waxa soo dhan inaad ma sameeynin si aad maalinta aakhira aad u noqoto qof nadiif ah oo Ilaahay u cafiyo inaad u noqoto midna waa ku sheegayaa Ilaahay dhiigga dadka ma cafinayo Ilaahay qofka dambi aad ka gasho oodan cafis ka dalban ka ma cafinayo qofkii uu ku cafin qofna kuma cafinayo Ilaahayna kuma cafinayo maalintaasna waxaad ogaan doontaa in lagu soo fariisanayo oo dambi aad ogtahay iyo haladan ogeyno lagu xisaabinayo si aad waxa soo dhan uga fogaato ka fogow dadka islaamka faxshilada iyo ceebta iyo dhibaatada aad la daba joogto ka fogow waan ogahay wiilasha Soomaaliyeed waxa ku jira wiilal qurux badan oo nadiif ah laakiin Soomaalidu waxay dhaxdaa badaba hal malaaya ooriyo markii 20 wiil mid soo istaajiyay hadii halka xun yahay ceebta wada leedihiin marka iska dhaafa inaad gabar walaashiin oo islaameed aad kufsatiin waa mahadsantiin salaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh